Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada Mobi Forex. Waa maalin kale. Maanta waa 13 bisha shanaad sanada 2025. Labada bir wax tirada ma qaadanin sababtoo ah suuqa wax iska ahaa ninka odaygaas iyo sheenaha markay ay bilaabeen in wada hadal iyo wax sameeyaan lacagtii GBP lacagta qaar strong ay noqotay aad markaa u jeedid lacagta hadda meeshan saak waxay ahayd halka ay ku furantay NY halkaas London waxay ku furantay halkan marka waxaan isdhahay kanalkan markuu xirmo halkaas uu ka xirmo kanalkan kala week hadduu qaato kor week hoose uu soo qaato zoonka markuu maraa inaad trade ka qaato anoo target gareenay London Open targetkaas halaas uu yahay laakiin waxaan malaysaa in oo suuqii bilaa kanal bilaa week uu ku xirmay marka ani markuu bilaa week ku xirmana ma jecel sababtoo ah waxa laga yaabaa weekgaas hadda oo bilaa weekan uu ku xirmay hadda markaan geeyo 30 minutes markaan geeyo hadda 30 minutes markaan geeyo meesha halkaas waay hadda laga yaabo inuu weekii kale uu sameysanayo 30 minutes waxa ka harsan 15 minutes ka harsan marka 15 kan oo hadda oo weekgaas uu qaatay weekii kale markuu soo qaato oo 15 minutes halkan uu ka joogo zoonka hadda week uu soo qaatay halkan uu ka joogo markuu weeksan uu sameysto kan kale oo halkan ka furmi doona aan rabaa inaan isku dayo inaan trade ka qaato anoo target gareenayo hadduu ilaahay idmo anoo target gareenayo all the way down hadduu ilaahay idmo marka halkaas aan rabaa inaan trade kala oo mid sell inaan halkan ka qaato kan zoonka hadda noogu xirmo kan kale halkaas inaan ka qaato saas aan ku noqdo oo weekiis uu sameysto kan kale halkaas aan ka qaadan doonaa anoo target ka dhigan doona kan kale waxaan ka dhigan doonaa target halkaas anoo target gareenayo ilaa zoonkaas kale anoo target gareenayo ilaa zoonkaas aan rabaa inaan target gareeyo marka halkaasna waxay noqon doontaa meeshii oo trade-kii aan u bixi lahaa marka trade-ka hadda waxay u malaysaa inuu meel fiican uu maraay marka maadaama meel fiican uu maraay waxaan rabnaa in trade-ki markuu xirmo 15 kan kale markuu xirmo inaan halkan ka qaadano anoo target gareenayo ilaa zoonkaas ilaa hoostaas macquul in suuqan maadaama uptrend uu yahay inuu naga saaro oo stop-loss-kan oo zoonkaas inuu naga qaado stop-loss-kan markaan leeyahay stop-loss-kii zoonkaas markaan leeyahay waxa waa 1 hour-kii hadda lagu jiro maahan 1 hour-kii hore aan rabaa halkaas inaan saarto stop-loss-ka halkaas markaad saarto marka waxaa laga yaabaa inay noqoto stop-loss-kii inuu noqdo laga yaabaa tusaale ahaan short position markaa halkaan dhigto stop-loss-kii inuu noqdo laga yaabaa maanta 35 inuu stop-loss-kii noqdo laga yaabaa 35 iyo 36 inuu stop-loss-kii noqdo laga yaabaa markaan leeyahay stop-loss-kii halkaas aan dhigan doonaa waxay ka dhigan tahay haddii lacala trade-kaas aan qaato in uu noqon doono 40 bip 38 bip meelahaas noqon kara 35 bip meelahaas qiyaastii meesha noqon kara laakiin waa taxdiiri doonaa maadaama suuqan uptrend iska yahay oo si xun labadan biri oo kor loo waday hadda kan 15 minutes hadda waxaa ujeedaa kan 15 minutes waxaa ujeedaa in uusan na siinaynin wax oo natiijo wax inuusan na siinaynin marka halkan waxaan rabaa inaan ka furo lacagta aan sharaxayo tan waay hadda 1 hour ay joogtaa tan hadda 15 minutes markaan geeyo waxaa u malaysaa in oo ay entry fiican ay bixinayso weli trade ma qaadan laakiin trade rabaa halkaas inaan ka qaato anoo target gareenayo zoonkaas oo London Open ilaa zoonkaas kale hoostaas oo Asian Logi oo xalay ahaa anoo rabo in targetka aan ka dhigto marka kulay waxay noqon kartaa waxa laga yaabaa inay noqoto waqti inay nagu qaadato laakiin waa iska sugi doonaa markasta oo trade-ka chance ay haysid waa markasta oo uu suuqa ku siiyo hadda waxyaalaha aan u leeyahay wax kale maahan kanalkan hadda meeshan oo ka muuqda oo qaybtan sare hadda markaan calaamad aan saaro kanalkan hadda halkaas waxay ahayd meesha ay ka furantay New York kadib kor la aaday hoosa la imaaday halkan lagu xirmay halkaas lagu xirmay kanalkana meesha lagu xirmay markaas waxaas leeyahay ama uu ku dhaafi rabaa suuqan ilaa zoonkaas niiskan uu soo baxay wuxuu ku soo baxay negative CPI da soo baxaysay marka trade-ka dusaas ugu dhaafo waxay noqonayaan waa qaladka markaan aan yeelan doono haddii aan qaato oo stoos iga dhacano waa inaan aqbalaa marka inaan trade-kii aan ku talagalay inaan khasaaro that's it wax weyn maan marka halka uu marayaan rabaa trade inaan ka qaato marka waxaan rabaa inaa ila socotiin qofkii haysto MT4 kiis wuu ila qaadan doonaa trade-kan haddii uu noqdo trade-ka koowaad oo trade-ka isbuucan trade-kan koowaad uu noqdo oo loss aan qaadano is normal wax weyn maahan haddii trade-kan koowaad uu noqdo oo loss aan qaadano wax weyn maahan halka marka waxaan ku dhufan doonaa hadduu ilaahay idmo halkan waxaan raadin doonaa trade korta waa qaatay ani halkaas waxaan raadin doonaa maxaa la dhahay intaan
qofkii raba inuu qaato waxaan rabaa inaan u sheego inaa imaatid MyFixBook inaa imaatid kadib waxaa samayn kartaa position size calculation aa imaan doontaa halkan waxaa ku dhufan doontaa halkaas oo ay ku qoran tahay lacagta waxaan ku qori doonaa GBP GBP markaan ku qorno size account size-kaada ku qori doontaa tusaale ahaan ani haddii okay size-kayga uu yahay 10,000 stop loss-kan uu yahay 35 bip riskiga uu yahay 1% meeqa heli doonaa waxaan stop loss-ka qalday stop loss 35 bip baan ka rabaa riskigana waxaan ka rabaa 1% lacagta heli doona 0.42 marka qofkii akoonkiis oo ay haysto tusaale ahaan 2,000 qofkii haysto halkaas uu ku qori doonaa 2,000 tusaale ahaan wax weyn maan 2,000 ku qori kaysaa si aad u fiirisid calculation ka heli jirtid 1.6 one lot haddii 50,000 yahay kaas ku qori doontaa wax ma isbedelayso waa isku hal halkaas markaa ku qortid waxaad leedahay position size calculation halkaas ku dhufan doontaa marka haddii ku tala gashay 1 to 1.5% hadaa ku tala gashay 1.5% inaa khasaartaa ku tala gashay account size-kaada uu yahay 5,000 tusaale ahaan ama 3,000 uu yahay asina sidaas aad samayn kartaa keeda 25 markaan fiirino trade-ka waxa laga yaabaa haddii aad khasaartid inaad khasaartid 1.5 ama 1% wixii aad qorshaysatay marka trade-kan waxa laga yaabaa inuu hadda marka meeshaan ka qaadanay oo ilaa hoostaas inuu imaado laakiin targetka guud halkaas oo noqon karaa halka kale la socon halkaas oo noqon karaa marka intaas waxa waaye qaabka trade-ka aan qaadan lahaa waaye 15 minutes waxa malaysaa kii hore inuu kii aan ka galnay kan kale inuu wax dhaqaaqay kadib kan kalena week dheer qaatay kadib uu rabo inuu soo laabto intageyn rabo inuu soo laabto laakiin waxa ku sugeynaa ilaa xoogaa waqti qaadato waqtan siin doonaa dilayn bismillah ani marka la soo laabto waxaan soo laabto wax kale ma ahan trade-kii oo halkan ka qaadanay horta maanta waxay ahayd week aan trade qaadanin laakiin week hore ay ugu dambeysay trade horta wax yar intuu profit noo bilaabay kadib uu soo jeestay halkaas markuu imaaday kadib waxaan isku dayay inaan iska sugo 35 bip oo ahaa khasaare aan ku talagalnay inaan aragno horta kulli inuu ku dhacaysan kale laakiin targetka guud ilaa zoonkaas aragnay lacagtan GJ waxa laga yaabaa inaan suuqa kasoo horjeesanay laakiin taas muhiim maahan wax muhiimad ay leedahay waxa waaye inaan nidaamkaada ku trade garaysid kadibna suuqa hadduu kaa saar haddii kalena aa ogolaatid khasaare ku talagashay maalintaas oo wixii aa khasaartidna oo maxaa lalahay oo ay noqotaan cashar ay ku noqoto everyday marka maalin kasta suuqa markaad joogtid waxa waaye wax baad ka baranaysaa 1 hour kan geystay stop loss-ka dushiisa 1 hour ka hore 1 hour ka trade-kan ka qaatay maahan 1 hour kan maahan kii kale halkaasaan geystay waxaan dhahay week-gaas hadduu soo gaaro almost ha ka saaro waxaa malaysaa inuu si fiican nooga saaray alxamdulillah marka ma ahan inaan dhahno waa trade-ku nooga saaray iyo sababta ay tahay maxaa waaye sababta waxa waaye saaka Asia low watana Asia marka halkan suuq markuu ka furmay London waxay samaysay Asian high ay garaacday marka waxaan sugaynaa maanta in Asian low-ga ay soo garaacdo si markaas kadib haday ay dib u laabanayso ay kor ina aado qorshahan ah in suuqa kor u socdo waa ogeyn waa ku xisaabaynay marka muhiimadda ma ahan in trade-kii aa qaldan tahay ama trade qalad aa qaadatay nidaamkaada haddaa ku qaadatid waxaa fiican inaad ku qanacdid oo aadan stop loss waxna sikinin oo waxna oo cabsi kalena aysan ku gelin marka trade-kii horta halkaas waaye meeshuu naga saaray halkaas waa ujeediin halkaas naga saaray 1 hour 15 minutes ka hadda ka horreeyay hadda uu naga saaray 15 minutes kan waxaa malaysaa oo si xawli inuu ku socdo oo kor u socdo hadda waxaa ka harsan wax ka yar 15 minutes ka harsan wax ka yar 15 seconds ka harsan oo hadda almost waa xilmi raba macquul ma tahay marka hadda inuu trade-ka halkan ku soo laabto oo zoonka markuu ku xirmo kan kale uu zoonka ku xirmi doono oo zoonkan ku soo xirmo waa macquul laakiin aniga hadda maadaama saacadan la joogo ay tahay xilli dambe saacadan kadib ma rabi inaan trade kale extra aan qaato maalinteedii waxay ahaan doontaa inaan halkaas ku joojiyo shalay wax trade ma qaadanin suuqa si fiican u dhaqaaqay shalay halkaas uu ahaa suuqa ka furmay maxaa lalahay NY ka furantay marka waxaan ka raadinaynay maadaama oo isniintii gaab uu ku furmay suuqa gaab inuu soo bixiyo qorshahan uu ahaa gaab inuu soo bixiyo asdayn gaabkan brokerada qaar gaab ma tusayaan laakiin
broker kale hadda gaabka ma ujeedi laakiin broker qaar oo waxa ujeedi oo gaab fiican uu ku furmay gaabkaas waa ka cabsi qabay in la soo buuxiyo waan sugayay ilaa laga soo buuxiyo gaabkaas oo ilaa zoonkaas ah marka ma la soo buuxinin marka ma aqaan inay noqoto maanta ama beri in la soo buuxin doono in kala shalay marka wax trade ma qaadan sababtoo ah waxaan trade u qaadan waayay zoonkan trade-kii ma ku xirmin taas waa hadda muhiimadda taas ahayd trade-kina kor u sii socday maadaama kor u socday faraha ka qaadnay all the way up kor u aaday saaka ku soo laabtay mar kale xalay waa berigii uu ku soo laabtay zoonkii markuu soo laabtay xitaa ma ku xirmin meel ka hooseys ma ku xirmin kadib haddana cirkaas isku shareeray marka isla eg hoos inuu ka samaysta laga yaabaa oo kadib suuqa kor loo diray kor marka loo dirayna halkaas waxaa ujeedaa in la qaaday isla egtii horena halkaas in laga qaaday had markaan calaamayno isla egtaan kalena waa la qaaday oo tan ahayd had waa la qaaday ujeediin marka wuxuu u socdaa new high inuu samaysto marka waxaan dhihi karnaa qaybtan waxay ahayd higher ahayd qaybtan higher low noqotay higher samaysatay marka higher lowdii la rabay in la sameeyo horta lama sameyn halkan uu soo kalaabtay qorshe wuxuu ahaa meeshan ka sareysan uu ku xirmo marka tradeigii kaasaa marka jihadiisa wareeriyey meel ka hooseys wuu ku xirmay tradekii caadi ahayd kor u socday wuu isbedelay dadka dhan waxay u haysteen in tradeka hoos u socdo xilliga asian oo ay furantay ahayd marka tradeka haddana kora loo celiyey saakaa ujeedin korkaasoo loo celiyey hadda ma waxaan ka rabnaa maadaama tradekii stops naga saaray halkaasaan faraha u qaadi doonaa kadib waxaan sugi doonaa hadda berito hadduu ilaaha idmo meeshuu ku xirmo zoonkan ma ku xirmi doonaa meel ka hooseys ma ku xirmi doonaa ama korkaas u aadi doonaa all the way high cusub ma samayn doonaa taas ma ogaan karno marka insha allah maanta waxaan rabaa inaan casharkii oo ahaa tradeka aan qaatay oo saaka aan ka qaatay halkaas oo ujeedid in xoogaa fiican uu siiyey profit oo san laakiin 1% uusan noo gaarin haddii 1% noo gaari lahaa xitaa waxay ahaan lahayd markaas waxaan geeni lahaa stop losska waxaan keeni lahaa entry 0.75 okay way dhacdaa marka qaar adoon tradekii aadan soo rarin stop losska rarin inuu kaaga dhaco qasab ma ahan in maalin kasta oo ay ciid noqoto marka maalin waxaa laga yaabaa suuqa inuu kasoo horjeesto markuu kasoo horjeesto waxaa laga rabaa inaad riskigaada aad manage garayn kartid risk management waa ku fiican tahay hadda alxamdulilah riskigeena waa iska manage garaynay tradeka waa naga saaray marka waxaan sugi doonaaba waa berito iyo wixii trade aan helno iyo sida xaaladda ay noqoto marka insha allah halkaasaan rabaa inaan kusoo koobo waxaa noo ballah casharka xiga asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu